مسؤوليته waxa ay sheegeen ayaan haayay hadii lagu qanci waayeen xog kale oo ka duwan oo tiina mas'uuliyadda soo gudbisay aan ahayn anigu ma hayn qofkii haayna soo gudbiyo ikraamna gabadhaydu waaye dibka ay dhibaaya laakiin xogtii ay soo gudbiyeen saraakiisha amnigu wax ka duwan ma heli karin qofkii xog ka duwan noo haaya anoo keeno xogtaas maxay ahayd wasiir xogtaas waxay ahayd in la afduubo gabadha oo la isu dhiibay oo niman qowleysata isu dhiibeen aakhirkana ay ku jilb agteeda lagu dilay waa gartay nimanka qowleysatada sidee uga qabteen xaruntii habar qadiijo oo nabadgelyada Soomaaliya ma ogaat ma weydiis maya xarunta inay ka dhex qabteen ba aniga xogtaas ma hayo laakiin xarunta meel ka baxsan oo u dhow laakiin ka baxsan xarunta u xiran xogta la soo gaarsiiyay aniga waa sidaas laakiin xog ka duwan oo ka bedelan oo taas ahayn qofkii haaya anoo keen goorma lagu soo gaarsiiyay ma hadda markay doodu bilaabatay mise muddadii la laaba maya maalintii la waayay ilaa maalintaas waa daba soconay meel ku soo sheega waxay dhaheen waqti waa soo baaraynaa waqtiga qaadatay ayadana sida ay xogta ugu soo gaarsiiyeen ayagu waxa waaye waa la isu dhiibay xataa hal meel ma ahayn meel baa la geeyay sida ay sheegayaan meel kale looga sii dhiibay meel kale wax waqtiga qaadatay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri xogtaasaan hay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri waxa ku lug lahaa dad qowleysataan ku qowleysato marka qowleysatada rabaan inaan xogaan noo jilciso dadka si u fahmaan ma ciidan ba madada la aqoon ba maxay yihiin adoo ma ciidan ba qowleysatada hatartaa inaan ka sheego ciidan qowleysatada ma hadal qof in ku hadlaa laakiin qowleysatada waa qowleysatada waa shabaabka iyo dadka iyo muxuu ahaa maafiyada iyo waxaasan ka hadlaynaa moogiyo ma ciidan qarana qowleysadana ehelada ikraan waxay sheegeen inuu taliyaha adna mas'uuliyadda Soomaaliya u yeeray baabuur ee hay'addu leedahay lagu soo qaaday xarunta habar qadiijo meel u dhow Hotel City Palace marka waana aag aan la gali karin anigu malihi fiiri adeer anigu waa been malihi anigu waxaan ku yiri hay'adii saraakiisha anigu aan madax u ahaa xogtay ii soo gudbiyeen sidaas ay ahayd xog ka duwan qofkii haaya oo noo sheegaya oo soo gudbinaya oo maxkamadaha iyo hay'adaha u gudbinaya xaq uu leeyahay laakiin anigu xogtii saraakiisha anigu madax ugu ahaa ay sheegeen xogtaas ay ahayd marka hadda marka wax isbedeleen aragtidaada iyo aqoontaada marka fiiriso si wax ku socdaan iyo xogti lagu soo gudbiyo mis waafaqayaan horta sidee raba go'aanadaas hay'adaha waxbaaraha iskale kadib maxkamadda iskale annaga waxa waaye waxbaan dhageysanaa waxa ay soo gudbin saraakiishu go'aan hadii la gaaray iyo waa been iyo waa run hay'adaha waxbaaraha iyo maxkamadda iskale waa mahadsantahay